waxaan aragnay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo runtii awoodii iyo dastuurkii iyo wixii lagu soo doorto oo uu wada baal maray laba sanaan maartay inta hadda laba sano laba bilood iyo saddex bilood baa ka dhiman intii maartay madaxweynuhu xilka uu qabtay laga bilaabo maalinkii uu xilka qabtay ilaa maantana aanu indhaha ka eeganayno islahayn madaxweynuhu waa cusub yahay waqti hal la siiyo oo uu baarlamaankii iyo dastuurkii dalka uu lahaa qodob madaxweynihii ugu tumanayo sida daraadeed ayaa waxa keentay in maanta aan madaxweynihii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo anagu aan dooranay aanu kalsoonidii kala noqono una gudbino golaha shacabka weeyaan qodobada ugu waaweyn ee hadda la xusuusan karo rasmiga ah madaxweynuhu uu baal maray hadda aan halkaan anagu ummadda Soomaaliyeed iyo idinka idinka cadeyn kara waxay tahay Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax muwaadin Soomaaliyeed oo intii jawaan madax loo geliyay aadan cadda International Airport laga dhoofiyay harkoo cad oo haddana la yiri isaga isdhiibay isaga sidan yeelay waxyaabaha cajiibka ah ee la yaabaa waxay tahay in madaxweynuhu uu baarlamaankan doortay hadda jira marka in baarlamaankii doortayna uusan madaxweynuhu markii uu hadlaba uu aflaga doonayo oo caaytamayo oo si maaragtay mas'uuliyadnimo ka dar xildhibaanada xanaaqsan iyo xildhibaanadu waa waalan yihiin iyo anagu mana waalin haddaan waalanahay isagaan dooranay shacabka Soomaaliyeedna waa inay ogaadaan xildhibaanada idin keenay madaxweynaha haddii waa sareeyaha dastuurka waa qofka la rabo inuu dastuurka ilaaliyo haddii uu dastuurkii anagu aan u dooranay uu ilaalin waayo waa inaan maaragtay annaga dadka iyo soo gudbino waajibka dastuuriga annaga aan leenahay ka qabsano waxyaabaha madaxweynaha ku eedeynayna waxa kamida waa anti federal madaxweynuhu dawlad goboleedyadii la dhisay ee shanta ahaa ee u yimid buu duminaya galmudug lama madaxweyne ay leedahay maanta